guutada 15aad ee qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ah mid cusub oo laga xulay ciidamadii dhawaan la qareemeeyay isla markaana lagu dhafay ciidankii qaybta 12aad taasoo qayb ka ah qorshaha dhismaha iyo tayeynta ee Ra'iisul Wasaare Khayre u jooga Galmudug. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa kormeer u tagay ciidanka xoogga dalka ee ka tirsan guutada 15aad ee taliska qaybta 12aad oo laga aasaasay ciidamadii dhawaan la qareemeeyay Ahlus Sunna iyo ciidamadii qaybta 12aad ee hore uga howlgali jiray deegaanada Galmudug kuwa oo hadda xoogan oo diyaar u ah howlgallada lagu baacsanayo argagixisada Al-Shabaab ee ku sugan deegaanada Galmudug. laga bilaabo waqtigan hadda ah xuquuqdiina waxaad ku leedihiin dawladda federaalka ama mushaar ama caafimaad ama garaam raashin intaba waxa ku leedihiin askar iyo saraakiilba waxa ku leedihiin dawladda federaalka waxaadna ka amar qaadataan dawladda federaalka askar iyo saraakiilba waxaad ka tirsantihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada ayaa amarkiinu yaa meesha uu ka baxo. wasiiru dawlaha wasaaradda gaashaandhigga Maxamed Cali Xagaa iyo madaxa fulinta Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay isku dhafka ciidankan qaybna ka ah qorshe Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo ku yimid Galmudug ee guuleystay. waa fursad aad u dahabi ah haddana waxyaabaha Ra'iisul Wasaaruhu oo muddada dheer u joogay ee Galmudug dhexdeeda waxa ugu horeeya waxa weeye sidii ciidamada halkan jooga loo tayeyn lahaa oo ay ula wareegi lahaayeen deegaamada ay haystaan khawaarijtu oo maanta hortada taagan oo diyaar u ah inay ka qayb galaan difaaca dalkooda haddaan wax yaro background ku siiyay madaxda ra'iisul wasaare ciidanka Ahlus Sunna waa ciidankii tababarnaa ciidankii kale aan tababarnayna waxay ku jiraan xerada Gurceel Harqaboobe iyo ciidankii 12aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaan Ilaahay mahadi maanta noo suura galashay. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ciidamada ugu tagay kormeer dhiirigelin iyo dardaaran ah ayaa ku booriyay in si wadajir ay uga shaqeeyaan midnimada qarannimada iyo sugidda amniga ayna u diyaar garoobaan howlgallada argagixisada looga xoranayo deegaanada ay uga sugan yihiin dawlad goboleedka Galmudug. xaradii la dhihi jiray 12aad in ciidamadii 12aad maanta la isugu keenay guutadan la yiraahdo guutada 15aad iyaga iyo kuwa xarada ku jira oo tababarka ku jira oo ah guutada aan rajeynayno haddii Ilaahay yiraahdo inay cadowga ka xoreyso ama khawaarijta gobolada ama degmooyinka Galmudug oo dhan marka ugu horeysa waxaan leeyahay hambaliyo ciidamadan kuwa 12aad ka hore iyo kuwa maanta halkan joogaba oo kulligood isku ah 12aad ama guutada 15aad waxay ka diiwaan gasheen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidamadii qaranka kulligood mid ka soo horeeyay ma jiro ciidan hore iyo ciidan dambe ma jiraan waa ciidamadii dawladda federaalka Soomaaliya oo ka shaqeyn doona midnimada qarannimada iyo sugidda amniga gaar ahaan xoreynta goobaha uu cadowga haysto. guutada 15aad ee qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa taliye looga dhigay Janaal Mas'uud Maxamed Warsame halka taliyaha qaybta 12aad ee ka tirsantaa guutadan uu yahay Yuusuf Maxamed Cabduqaadir Kaanti. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaana si gaar ah ula dardaarmay isagoo ku adkeeyay inay gutaan mas'uuliyadda ka saaran difaaca dhiigga iyo hantida ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada Galmudug ay u xil saaran yihiin taliska qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay ka muuqato burbur xoogan ayuu Ra'iisul Wasaare Khayre sheegay in dhawaan la dhisi doono isla markaana ciidanka u ballan qaaday in dawladda Soomaaliya u dhameystirayso dagmaan qalabka iyo tababarada ay u baahan yihiin. waxaa kaloon rajeynayaa in aad sida ugu dhaqsaha badan kulligiin idinkoo isku duuban
inaad ka shaqaysaan in qof dambo oo khawaarij aan lagu arkin dhulkan haddii ilaahay yiraahdo wax walba oo garaam ah iyo warqado iyo shaqo waxaa la idin soo marsiinayaa taliyihii waa kanaha qaybta 11aad mas-uuliyadda hadda waxaa haya waqtigan xaadirkaa taliya Mascuud wixii ama awaamiir intaas ka sokeeya waxaad ku shaqaynaysaan amarka idin yimaada laga bilaabo maanta halkan waxaan rabaa inaan ka ballan qaado dawladda federaalku inay ka shaqayn doonto sida ugu dhaqsaha badan in loo dhisi doono xeradan waana mahadsantiin isku dhafka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku biiraya guulihii laga gaaray isku dhafidda ciidamada booliiska iyo nabad sugidda arrintaas oo muujinaysa in Ra'iisul Wasaare Khayre uu ku guuleystay qorshihiisii ah qaramaynta ciidamada Ahlusunna iyo ciidamada deegaanka si ay wadajir uga xoreeyaan deegaanada Galmudug ee argagixisadu ku dhibaataynayaan shacabka Soomaaliyeed. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.